halkani waa deegaanka ceel shaalle oo kala qaybiya degmooyinka Afgooy iyo sidoo kale Daynine waxa uu sidoo kale deegaankani kala qaybiya gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeellaha Hoose kooxda argagixisada al-shabaab ayaa isku dayday in halkan weerar ku soo qaadaan waxaana ku sugnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada amniga kuwaas oo gacanta ku dhigay laba kamid ah kooxda argagixisada al-shabaab oo isku dayay inay goobta ka baxsadaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Daynile iyo saraakiisha ciidamada amniga ayaa soo kormeeray goobta uu howlgalkan ka dhacay iyagoo sidoo kale soo kormeeray goobtan lagu soo bandhigay labada dhagar qabe ee kooxda al-shabaab ka tirsanaa gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir mudane Jacfar ayaa ka warbixiyay qaabka uu howlgalkan u dhacay galabta waxaan isugu nimiday meesha xal dhibku ka dhacay oo ay soo weerareen nimankii dhagar qabayaasha ahay oo shabaab dhibaato badan ay ku gaartay haddana ay laga haayo laba nin oo dhaawac ah hubkoodii iyo ayagiiba la haayo xalay adiga 4 saac ay soo weerareen bar ciidan oo ku taala duleedka degmada Daynile oo la yiraahdo Saqayro gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish waxa uu tilmaamay in maamul gobolka Banaadir uu bogaadinaya howlgallada sidaan oo kale oo lagu baacsanaya ama lagu ciribtiraya kooxda argagixisada al-shabaab waxaan uga digaynaa inayaan ku kadsoomin dhagar qabayaasha argagixisada ah ku soo duulay dalkeena iyo dalal kale oo kamid ah dalalka islaamka runtii dhibaatooyinka dhaca ee aad u jeediin waxay u gaar tahay qaar kamid ah dalalka islaamka dhibaatooyinkaas waa ka bad qabaan dalalka kale ee aan islaamka ahayn ama haday dhacdona aaday u yarta marka waxaad dareemaysaa marka inay tahay qatlu diin biismi diin diintii ayaa la dilayaa waxa lagu dilayaa isla magaca diinta lagu dilayaa waa dhibaato dad si negative ah ama khaldan u fikira ayaa aragtidaas qaatay saameyn ku yeeshay bulshadii qaar badan oo bulshadii Soomaaliyeed kamid ah ama bulshadii caalamka islaamka kamid ah ayaa arrintaas ka raariday sidoo kale duqa magaalada Muqdisho waxa uu tilmaamay in abaalmarino kala duwan la gudoonsiin doono geesiyaashii gacanta ku dhigay raggaani ka tirsan dhagar qabayaasha kooxda al-shabaab ma ahan asgari kaliya ee cid kasta oo waajibkii loo xil saaray si hufan uga soo dhalaasho ayaa waxay mudan tahay in abaalmarin la siiyo marka ciidamada meel walbo ay joogaan marka ay ku guuleystaan waajibaadkooda waxay mudan yihiin abaalmarin waxaana abaalmarin doona madaxda ayaga ay hoos tagaan runtii sida qofku marka uu waajibkii la siiyay oo ku khaldamo oo canaan u mudan yahay ayuu bedelkeeda abaalmarin u mudan yahay mataqaanaa marka uu waajibaadkiisii uu ku guuleysto waana la abaalmarin doona biidnillaahi kariim dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir qaar kamid ah gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha amniga ayaa sidoo kale kormeeray deegaanka Awgoole oo kamid ah deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ujeedka kormeerkani ayaa ahaa mid ay u kurgalayeen maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale saraakiisha amniga goobaha ay maleeshiyada argagixisada al-shabaab ku dhuumaaleystaan gudoomiyaha degmada Daynile ee gobolka Banaadir mudane Jacfar ayaa ka warbixiyay ujeedka booqashadooda ku aadan deegaanka Awgoole kormeerkii ilaa galabta aan wadnay meelihii xal wax ka dhacaan ilaa deegaanadan oo dhan lugta ayaan soo wada marinay haddana waxaan ku soo gabagabeynay soonihii ay ka soo gudbi jireen oo Awgooy iyo Basra wax dhib oo ka jira ma jiraan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulah ayaa kamid ahaa mas'uuliyiintii goobta ka hadlay sida hadda aad u jeedaan waxaan joognaa deegaano Basra ka tirsan oo runtii dad walba oo laga yaabo inay maqal ku maqleen laakiin halkan in la iman karo ay tahay wax qariib ah marka waxaan u nimid inaan ugu kurgalno horta goobaha ay ka yimaadaan laftirkeeda shabaab inta ayagu ay noo imaan lahaayeen inaan annaga ugu tagno goobaha laga sheego iyo meelaha ay ka soo galaan waa xilli maqrib ah oo gudoomiyaashii degmooyinka gudoomiye ku-xigeenadii gudoomiyihii gobolka oo cidi ka maqnayn waxaan runtii shacabka halkan jooga iyo dadka halkan joogana ay ka muuqata runtii inay si caadi ah noloshoodii u wataan waa dhici kartaa marmar inay ku soo dhex dhuuntaan xillada habeenkii saqda dhexa sida xalayba ay sameeyeen mar walbana jab bay kala kulmaan ciidanka qaranka iyo qaybihiisa kala duwan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane
cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa tilmaamay in ciidamada amniga ay goob kasta ka ciribtiri doonaan kooxda maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasi oo ka soo horjeeda horumarka iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed. runtii jabi halaaga ka raacay nolosha ayaa lagu soo qabqabtay qaar kalena meesha lagu laayay oo meedadkoodii aan dul tagnay marka mar walbaba waxaan ku badinaynaa socodka haddii Rabbi idmo si ayaan mar dambe niyadda hadda gashay ayaan u gelin. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.